Bismillah. Asalaamu calaykum waraxma. Muuqaalkan waxaan kusoo qaadanaynaa wax loo yaqaano flashcards. Flashcards micnihiisu kooban haddii aan tilmaamo, waxaan odhan karaa waa warqad yar oo dabcan gacantaada calaacashaada la eg. Warqadaasoo lagu qorayo su'aal iyo jawaab. Su'aasha waxaa looga qorayaa xagga hore, jawaabtuna waxaa lagu qorayaa xagga dambe. Adigaa marka imtixaan iska qaadaya oo kedis isaga dhigaya su'aalahaas. Su'aasha waad ka jawaabaysaa, jawaabtana ma eegaysid walow ay xagga dambe ku qoran tahay. Looma baahna inaad eegto ama aad fiiriso. Waxaa loo baahan yahay inaad maskaxda tuujiso marka hore. Markaad jawaabta bixisana inaad xaqiijiso waxa gadaal ku qoran. Jawaabta gadaal ku qoran inay isleeyihiin jawaabtii aad sheegtay iyo jawaabta kugu qoran ee meesha kugu qoran. Waxaan dhihi karnaa marka waa active recall. Flashcardsku way dabaqaan fikradda la yiraahdo active recall. Sidoo kale waxay dabaqaan fikrad kale oo la yiraahdo SRS oo looga hortago ilowshiyaha ku yimaada muddo dheer kadib durusti la soo qaadan jiray ee faragelinta badnaa ama forgetting curve. Fikradda cilmi baarista ku saleysan ee SRS ama Spaced Repetition System iyo Forgetting Curve, haddii Ilaahay yiraahdo waxaan kusoo qaadan doonaa muuqaalo kale. Aan u soo laabano flashcards. Flashcardsku waa laba noocood. Nooc waxay yiraahdaan waa physical, noocna waa digital. Nooca physicalka waa mid la taaban karo oo la qaban karo. Waana waraaqaha caadiga ah, muxuu ahaye waa sidii kaar oo kale. Waad qaban kartaa, waad taaban kartaa. Noocna waa digital oo waa electronic, wax ku shaqeeya applicationska ayaa lagu dhex sameeyay. Labadaas noocood yaa fiican haddii la yiraahdo, jawaabta oo kooban waxaan dhihi karnaa waa nooca digitalka ah ama applicationska lagu sameeyay. Sababtuna waxa weeyaan nooca physicalka ah ama waraaqaha dabcan la taaban karo ee flashcardska ah waxaa lagu ciladeeyaa dabcan inay lumi karaan, way ka lumi karaan, way ka qoyi karaan. Haddii ay bataan oo waraaqo badan ay noqdaan, meel kasta looma wada qaadan karo. Allahu musta'aan, xasharaad baa cuni kara oo halkaasaad ku waayi kartaa. Marka dhibaatadoodu ma yara. Waxaa ka dhib yar oo maaragtay ka wanaagsan kuwa digitalka ah oo iyagu ammaankoodu uu sugan yahay, la iskuna halayn karo. Adeegsiga flashcardska waraaqaha ah looma badna waqti xaadirkan. Waxaa loo badan yahay isticmaalka digital flashcards oo iyagu ah applicationskaasna waxaa ka mid ah Anki oo isagoo ah barnaamij ka duwan barnaamijyada kale ee internetka ku jira ee la midka ah isaga. Insha Allahna aan taxanihiisa soo bandhigi doono haddii Ilaahay yiraahdo. Isagoo kaliya ma jira, sidoo kale waxaa jira boqolaal kale oo iyaguna internetka ku jira sida Remnote, Quizlet iyo wixii kale ee la halmaala. Adeegsiga flashcardska waxaa loo yaqaano ardayga aad bay muhiim ugu tahay. Sababtoo ah waxay u suurtagelinayaan waxyaabo fara badan oo uu u baahan yahay oo ay ugu muhiimsan yihiin, uguna waaweyn yihiin 3 qodob oo waaweyn. Kow, waxay ardayga u saacidayaan inuu yeesho long term memory ama xusuus ay adag tahay inay guurto ayuu casharka u yeelanayaa. Waqti dheer buu xusuusnaan karaa casharka. 2, waxay ka baajinayaan ku celcelinta hal cashar dhowr maalmood. Cashar laga dhammaan layahay macnaha inuu ku celceliyo bay ka baajinayaan. 3, waxay kor u qaadayaan dhibcaha imtixaankiisa oo wuxuu kusoo gudbi doonaa ama uu kusoo baasi doonaa buundooyin aad u sareeya. 3daas faa'iido ayay dabcan flashcardsku xambaarsan yihiin. Sababtoo ah waxay ku hubeysan yihiin flashcardsku 2 farsamo oo aad iyo aad u cajiib u ah oo kala ah active recall oo aan ka soo hadalnay iyo spaced repetition system oo iyadu ah fikrad cilmi baaris ku saleysan oo la dagaalanta ilowshiyaha la dagaalanta. Insha Allah waan ka hadli doonaa.